السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وناكسن أصحابتك وحرم برتين يوتيوب. وادي سو دويننا إن بدن بقولك بقول أصحابتك لو دوني سنة إنه صبير تسوكل وانسو دويننا فضلا أنت هذا مقالك جودو قلين سبسكرايب نصار جنالك نوشر قريب براها قبل شدة مقال كان الله في نصار. أنت سمرك كجود بمانتو حندوني إن كهالله مقال ير أو نقول تلاقى لي جوابه سؤاله يو قرموي كعيسو درتين. qormooyinka ay soo dirteen waa dhowr qaybood. qayb ka mid ah waan idinkaga jawaabeynaa. qayb hore ayaa uga jawaabnay. qayb kale waxaa jirta saddexaad oo aan annagana quseyn sidadaba. qaybaha aan doonaya inaan ka jawaabo waxaa ka mid ah waddanka ma la imaan karaa? haa, waa la imaan karaa. si fiican ayaad u imaan kartaan. wixii faahfaahinay jawaabihiias oo dhan wixii ku saabsan jawaabtaas faahfaahinteeda muuqaalada gadaale oo aan duubneed aadaysaa halkaas kasoo daawanaysaa waxa dhan. waddanka qaabab caynkee ah loo yimaadaa oo lagu yimaadaa imise qaybood see loo yimaadaa maxaa lagu yimaadaa waa soo duubnay brada ama sista gadaal u laabo muuqaalada hore soo daawo inta loo yimaado waddanka sida sharciga ah lagu yimaado. waddanka nolol ma leeyahay oo ma la deganaan karaa ma lagu noolaan karaa? haa, waa leeyahay nolol waa lagu noolaan karaa haddii aad tahay adigu qof noloshiisa maaraynaya oo ugu soo talagalay inuu wax qabsado mustaqbalkiisana horumariyo. de qofkii aan wax qabsanayna meel ku noolaa karaa wayse jirinba. waddanka ma leeyahay shaqo? haa, wuu leeyahay shaqo leeyahay. waxbarashuu leeyahay dadka rabta adiga qof wax baranayo. wuxuu leeyahay fursado badan oo adiga wax ku samaysan karto shakhsi ahaantaada. waddanku waa waddan qaniya waxyaabo badan ka hormarsan wadamada hadda qaar Yurub nagu hareeraysan wadamo badan oo ah waxyaabo badan uga horeeya. marka dabcan wixii dhamaystirana muuqaaladii aan kusoo duubnay iyo waddanka dadka waxbarasho imanaya wadada soo marayaan dadka dalxiiska wadada soo maraya muuqaaladii horead kusoo daawane. waxaasoo dhan dadka soo galo caadi usoo galo illegalka ah xuduudaha markay soo galaan waxyaabaha ay la kulmi karaan iyo soo gelidda xuduudaha muuqaaladii horead ku daawanaysaa. gadaal u laabo muuqaalada hore si fiican usoo daawo. intaas waa inta aan idinkaga jawaabi karo. waxaa jiro su'aalo badan oon idinkaga jawaabi karin. waxaa ka mid ah waddankii aa joogaa waddan hebelaa soo aadaa ee waddanka saa kusoo geli karaa? ani ima qusayso baraada saa kusoo geli kartid ama siista. waddanka markaa imaado waddanka inaan ka baxaa rabaa ee ord ma uga bixi karaa? wax aniga i quseeya maahan ayadana waanugu dee waddanka dadka deganaan ka mid ahay. su-aashaas waa su-aalahaasoo dhan waa su-aalo aan ku habboonayn in anagu idinkaga jawaabno. qofka wuxuu kusoo weydiinayaa dhalinyaro badan waxay soo weydiisay waddanka waxbaan rabna inaan ka barano jaamacadda imisaa ku bixi karto qiimo intee ah lagu yimaadaa iyo waxyaaba saas. brothers waxaasoo dhan wax annaga aan ka jawaabayno ama aan ka jawaabi karno ma ahan. iimeyladan way buuxsameen waxyaabaha ka buuxana intaasoo kale ugu badan. haddii aan ka gudbo taas ayadana halkaas uga gudbo waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo weydiiyey waddanka. dhalinyarada ugu fiican oon aad u taageersanahay waxaa ka mid ah dadka soo weydiiya waddanka ma lagu noolaan karaa ma la deganaan karaa qofka waxbarasho u yimid asagoo waxbarashadiisii wato waddanka wax ma ka qabsan karaa? haa brother waad ka qabsan kartaa adoo jaamacadda dhiganaya waddanka degan kaarkaaga deganaanshaha qaatay wadna shaqaysan kartaa. wixii faahfaahintaas dheer fadlan waxaa ku laabataa muuqaaladii aan horay u duubnay. muuqaaladeenii hore waxaas oo dhan ku dhammaystiran yihiin. waxaa kuu soo haray dadka kale ee doonaya inay ku yimaadeen qaab shaqo. shaqada iyo qaababkeeda mar dhan aan fiideo aad u faahfaahsan uga hadli doonaa. horeyna waan uga soo hadalnay laakiin waxbaa noogu dhiman inaan ka sharaxno. waa lagu yimaadaa shaqada waddanka waa lagu yimaadaa qaababka iyo jaanisyada iyo waxyaabaha ku hareeraysanna fiideoyada soo socda uga hadli doonaa. intaas marka uga gudbo guud ahaan intii aan ugu talagalay fiideoga waxaan doonayaa wax yar oo talaa horta inaan ku siiyo adiga i daawanaya. brother and sister marka hore horta ogow qof muslimna tahay markaa rabtid inaad wax samaydid waa inaad ilaahay isku xirtaa qalbigaaga. wax kasta inaad heli karto weyn karto wax kastana ku dhacaan qadarta ilaahay horta waa inaad ictiqaadaa ood ogolaataa. marka labaad waa inaad waxa aad rabto inaad samaydo xog ka heshaa. macnaha xog haddaad rabto inaad heshid waa wanda hadda idin sheegayo kaleeto waa xog aad isiinayno
waagi hore waxaa jirta baadiyaha dadka degaa ay yaqaano reerku markuu meel degan yahay berin weyn ay degan yihiin berimkiina uusan daaq lahaynoo daaqii xooluhu ka dhammaado laba qof ama qofaa la diri jiray sahan sameeya meel kaloo cidda loo raro meeshaas ciddada loo raro markay soo arkaan kadib aa loo guuri jiray annagu sahankiyaa nahay xogta idi siinaynaa xogta maalin iyo laba laguma soo koobi karo walaalayaal idinkana su'aalaha aadna weydiinaysaan ha ahaadeen su'aalo aad sababaysan haddaa adiga joogto meel aan lagu soo daba istaagayn ama aan dembi lagaa qorayn ama aan cudud ku soo aadayn walaalahaaga kale ha maranin su'aalaha aad soo weydiinaysaan annaga idinkaga jawaabayno waa su'aalaha adinkana wax idin gala annagana wax noo dhibaynin aana ku wada nabadgelayno kuwana wada ceeshi karno xog inaan idin siino oo waxaan meeshan u joogno idinkuna inaad xog heshaan waxaad noogu xirantihiin bliis haddii aad doonayso inaad xogtaan hesho mar walba ayadoo cusub iyo wixii waddanka kusoo siyaada asxaabtaadana aad la wadaagto adigana aad wax ku qabsato ku cibro qaadato ku waddo qaadato ku toosh ka dhigato nagu xirnaaw nagu soo xir saaxiibada kugu xiran barahaga bulshada noo sheer garay janaalka subscribe noo saar muuqaalkana laag noo saar intaa iyo nabadgelyo sida ay kusoo gabagabeynayna barnaamijkan ugu talagalnay maanta bliis hanaga iloobin subscribe share inaad noogu dhahdo barahaaga bulshada muuqaaladeennana aa laag noo saarto fadlan kuna laabo fideoyadeennii hore xog kasta eed u baahantaa ayaad ka helaysaay waad mahadsantihiin galab wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu